السلام عليكم waxa uu yiri Jacfar al-Mansuur waxaan ka war helay in libaax iyo ay doofaar kulmeen kadib uu doofaarkii yiri ila dagaalam libaaxiina uu yiri doofaar ayaa tahay oo kula dagaalami ma doofaarkii baa yiri haddii aad ila dagaalami weydo waxaan ku noqonayaa kooxdii doofaarada ahayd ee aan ka imiday libaaxii iga cabsaday war ah waan gaarsiinayaa waxa uu jawaabay libaaxii haddii aan dalabkaaga yeelo ila dagaalantaa oo aan in yar ku gaarsiiyo waxay igu tahay lafjab iyo bahdilaad adigana faan iyo tooqid bay ku noqonaysaa waayo doofaar baad oo isku martabad ma yihiin waxay dhaanta inaan beentaada dhageysto intaan kula dagaalami lahaa ee shaarufahayga dhiigaaga doofaarnimo ku iclaamin lahaa sheekadan waxaynu kala soo baxaynaa qodobo door ah haddii qofka saaxiibkii lagu yaqaan cadowgiisana waa lagu yaqaanaa dadka qaar ayaan u qalmin inay helaan sharaf ah in aad la culowdo liidashadooda dartood oo haddaad ka gacan sareysana guushaasi dhandhan dheef iyo macno midna ku samayn mayso haddii ay ka gacan sareeyaanna ay dhibaato kugu noqonayso iyo marxaladaanad ka soo waaqay aad kaga guuleysanaysaa ay tahay inaan gelinba haddii aad gashana oo aad ku gacan sareysana guushaad sheeganaysaa ay tahay jab la hagoojiyey shaadhkii guusha haddii laga gacan sareeyana aad kala kulmayso marxalad aanad ka soo waaqsan cidda kaa liidata marka halka ay kula doonayso ay hoos kugu soo daadajiso iyada ayaad la halmaalaysaa ay ka fursan weydo oo marxaladaasi ay kalifto inaad dagaal ka gashana oo cidaasi ay ka fursan weydo in aad la dagaalamayo iyo sida loo dagaalamayo intaba danaha la leeyahay dariiqyada loo marayaa ma damaanad qaadaane iyo hiraalka aynu u leenahay u noqoto mid daahiro hubka aynu ku dagaalamayna waa inuu noqdo mid daahiro isna oo dulmiga ka maran libin kasta ood ku soo hoysay dariiq qaldan ma aha mid waaraysa ama wanaagsanaanaysa xilliga la nabdoon yahay halyeyga iyo hacooga dadka lama kala garto maalinta isqabasho iyo hawla ay timaad ayaa qof waliba kaalinta nololeed dhacanta uu ku leeyahay la ogaadaa doornimadu ma aha inaad loolan kasta xalad kastoo oogsata aad qayb ka ahaa inaad hawlaha qaarkood ka gaabsato oo aanad ku dhex milmin beegyada hanka iyo qabkana waa inaad kala garato oo aanay ku gudboonaan han sarreyso ood hiraal yeelataa waa mid aad ku dhowrsoonaanayso aana dadka kale dhacdhac iyo dhibaabo midna ula tegaynin qabweyniduna waa inaad isku aragto inaad uunka kale iyo basharka kula midka ah iyo bini'aadamkaba adigu ka sarreyso oo aad ka mudan tahay haddii aad qof isqabataan qofkaasi kaalintii haldoornimo iyo xurmadii uu ka tanaasuli waayo waa inaad dib u eegtaa waxaa ciddaa idin dhex martay oo aad saxdaa dadka jaadka noocaasa lama helo waa marla arag ee waa inaad ku dadaashaa inaanad dafdaf iyo dariiq qaldan adigu waxu marin inta mahuraankaa in ka badan haddii aad qof u dhowaato hadhow marka in aad kala tagtaan ay mahuraan noqoto way kugu adkaanaysaa arrinkaasi sidii aad u hirgelin lahayd ama aad u samayn lahayd ama arrinkaasi u dhici lahaa masaafooyinka hindisayaasha iyo hal abuurnimada khubrada dirawalintu ku taliyaan ee ah masaafada badbaadada oo labada baabuur inta ay isku jiraan ee u dhaxaysa waa masaafada ay ku kala badbaadayaan haddii ka horeeya uu dhib qabsado ama uu shil galo oo kale ka kale hadduu aanu tallaabo ka dambaynin ee dhibkaasi wada gaaraya laakiin ka hore marka uu dhib gaaro ama istaago kan kale intan u dhaxaysay weeyaan inta uu kaga badbaadaya